Hi guys, waynu salaam asxaabta qiimaha qadarinta mawduuca gudubtiin walaalkiin yuyu mar kale muuqaal kale. Maanta barnaamijkii wuxuu ku saabsan yahay qancinta dadka kale. Adoo u jeedo inaad isqancinaysid, qof kale qancinay. Waxaa leedahay aniga haddaan waxaan sameeyo, heblo ay arkaayo, saana la dhahaa, dadka iganaya loo geynaa muuqaalka ama saan. Maxaa ku geliya waxaas adiga? Qof ma u nooshahay? Ha u noolaanin qof. Isku noolow adiga. maalinta aad qof u noolaatid ama aad isku daydid qof bini aadam inaad qancisid waa maalinta aad la go'day completely mayshaako noloshaada dhan aad la go'day. maxaa yeelay bini aadamka siduu ilaahay noo umo waxaa waaye ma qancayaan. ilaahay subxaana qaadirka oo nimcada siinaayo oo wax waliba siinaayo ay mataqaanaa kuwa qaar ku kufriyaan oo mataqaanaa ay ka baxaan ku shirkiyaan. marka adigi bini aadamkii oo bini aadam manzaaki maxaad ku bedeli kartaa ama maxaad ku caawin kartaa haddaad tiraadid waan qancinaa heblow? ma qancinaysid weligaa. bini aadamka goortu qancina ama goortu dhargaayo waxaa waaye goorta carrada lagu soo rogo ama godka u galo. markaa saxaabay midda aan iga codsanayo dhammaantiin waxaa waaye way jiraan kuwa hadda oo dulaysan oo bini aadam u dulaysan 100%. ani maraan soo maray. marka aad bini aadan gacantiis ka bixaysid waxaa waaye waa marka aadan u fiirinin heblow suu ku arki doonaa ama heblayo say ku arki doontaa. isweydii adiga hadda saad isku aragtaa, adiga see u aragtaa waxa may kula fiican yihiin? ha gal. hadday kula fiican yihiin naftaada weli been kuma sheegayso. naftaada been kuma sheegayso. gal waxay naftaada ku qanacsan tahay. haddayba aan ahayn ku shirki ilaahay inaad ilaahay ku kufrisid ayna ahayn ama diinta aan dhinaca ka soo galaynin, waxay naftaada qancinaayo samey. horumar wixii qofna ha ugala tashanin. ileen dadka aad la tashanaysid you will never know in ay raali ka yihiin ama ku qanacsan yihiin horumarka aad ayaga aad la wadaagaysid. war qofna ha la wadaagin waxaad adi leedahay. qofna ha la wadaagin stepka qaadaysid. just surprise them. warniyow waxaa is leedahay aniga cadow ma lihi dadka dhan. war qofka maalinta aad qof waliba aad saaxiib ay qof waliba ku dholcadana aragtid waa maalinta ugu khatarka badan. noloshaada waa muhiim inaad cadow yeelatid. waa muhiim inaad yeelatid friend. laakiin waxaa dhan markii dhinac aad u bixisid waxaa muhiim oo naftaada adi markaas iska dhaadhicisa waxaa waaye waxaa qabanayo ma aha inaan qof u qabanayo. anaa isku qabanayo my own purpose aan u qabanaya. isqanci naftaada adiga. qabo waxaad qabanaysid adiga u qabso. laakiin goorta aa u qabatid xaliima ay arkaysa seen sameyna ama cabdi ay fiirinayo waa maalinta aadan step qaadaynin. midda labaad waxaa waaye cadowga banaanka aad ka raadinaysid. waxaa rabtaa inaad wax samaysatid, youtube aad furatid. waxaa rabtaa inaad gaari soo gadatid. wax cun inaad nolosha ka badishid aa rabtaa. once aad la wadaagtid saaxiibkaaga aa is leedahay saaxiibkaaga ku dhowaaye waa ku daayin. af daboolan waa dahab. afkaaga markay ku jiraan ay safe yihiin wax waliba. wixii horumar waxay horumar yihiin markay adig ku keli yihiin. once ay public noqdaan horumar maaha. marka just surprise them. adiga sameey waxaad abaabulaysid abaabul banaanka soo dhig. markaa soo dhigtid inta ma samaysad ogow waan ku faraxsanahay markaa qof kule inside him or her kuma faraxsano. adina markaasaad isku dayaysa inaad please garaysid ama qancisid qofka. war ma qancinaysid qofka. qof kula rabo malaha horumar. qof kula rabo malaha wanaag. qof kula rabo malaha jacayl in hataa aad yeelatid ama lagu jeclaado. maxaa yeelay bini aadanka ma rabo ama ma qanco haddii qofkii agtiisa jooga ama step yar qaado ma rabo. soo u badan yahay waaya waa 80%. 10%gana weli waxbaa ku jiro.
markaas isku dayaysaa inaad bini aadan qancisid, markaad isku dayaysaa mar aad farxadid inaad farxadaada la qaybsatid, mar aad isku dayaysaa mar aad markii wax aad heshid inaad la qaybsatid oo waxaan hele you know what waxa uu sheegay mataqaana ha mar waliba markaan wax helo uu igu farxaa ama igu farxada. No one. farxadda banaanka lagaa tusaayo waa fake smile, waa fake happiness. adigu markay kaa dhaqaaqaan ama dhankaada laga tago waa lagu xiraa maxaa waaye heblow asaan sameeyey once wixii aad soo gadan rabto ama aad sameyn rabtay qof aad la wadaagtid public waaye. public means qofkii aad u sheegtay adi afkiisa fur kuma haysid, wuu qaadaa meel heblow la tagaa, heblaayo u sheegaa, xaliim uu sheegaa, cabdi uu sheegay, cusmaan uu sheegaa. maxaa ku yaala meesha? bini aadan haddii ay soo gashana meesha xaasid waaye, bini aadanka xaasid waaye. qof wanzaake wax la rabo male ama walaalkiis wax la rabo male. goorta aad wax ku aragtid walaalka adna xaasidinada jooji, maasha allah ku dar. maxaa yeelay imse qof oo hami laheedoo hadda derbi jiifa, imse qof oo wax sameyn rabay oo meel fiican gaaray maxaa yeelay qaladka u weyn ay sameeyeen waxay tahay inay la wadaagaan asxaabtooda dreamka. mogtahay kan dreamkayga waaye, ani saanaan sameyn rabaa, beriyaan guudi rabaa, intaan ka bixi rabaa. banaankaad soo dhigtay qaladkaas kaas waaye. maxaa yeelay kan kuu dhow waa is leedahay kan cadawad managa dhexayso, wax he's my best friend or she's my best friend. No. once banaanka ay baxdo way ku dhamaato, wayna baxdaysaa hataa say u dhaxdo waaye. marka aad ku xakameyn kartaa ama horumarkaada ku tixgelin kartaa ama ku gaari kartaa horumarkaaga. soomaaliya markay mahmaahdo waxay tiri, waxaa la yidhi horta kuma mahmaahdo beenna kuma mahmaahdo, hadday mahmaahdo runay kuma mahmaahda. af daboolna waa dahab, af daboolne waa dahab. haddaadan soo saarin sirtaada qof afkaada qodayo soo saarayo male, haddaadan soo saarin dreamkaaga qof ogaanayo male. just be silent killer noqo, hoos ku soco, markaas waa arki doontaa ayagana surprise ku noqonaysaa. after 1 year waxaa is leedahay haddii aad silent ku jirtid 6 month hataa haddaad silence ku jirtid aad silence ku biligaraysid ama aamusnaan ku biligaraysid noloshaada ku dhistid, waa marka keliya aad ka baxaysid bini aadan gacantiisa ama aad mataqaanaa aad ka tegaysid step 2-3 step meel ay kugu soo gaari karin aad gaaraysid. marka waxaan iska ognahay asxaabtayda qiimaha qadarinta badan, waxaan iska ognahay in sirtaada adiga ay ku qorsanaato, in aadan dhihin kan waa walaalkey ama kan waa saaxiibkey, aadan dhihin ilen midaan kuu sheega horta cadowga la sheegayo ama qof kaa maseerayo, cadowga la sheegayo maa qof banaanka imaaday, waa qof noloshaada yaqaano, kartidaada yaqaano, saa u shaqaynaysa yaqaano, oo ka cabsanayo inaad meel gaadhin. marka meeshaas bahasha waxaa ugu badbaadi kartaa in aadanba la wadaagin qofka aad hataa aad hal aqal la degan tahay. oo gaaraysa ma ku sheegin miya sorry bro sorry ama sorry brother ya sorry brother waa ku sheegi rabi lakin inaan ku sheegaan umalaystin oo busy aan ahay. mogtahay waa technique dadka fega looga baxsado. ileen mar waliba hay blame dadka ay jecel yihiin inay blame gareeyaan ama ay eedeeyaan. niyo ani saanaa samaysaa action iska qaadataa, waa iska baxdaa, waa iska safartaa, saanaad samaysaa, dukaanaa furataa ama waxbaa samaysataa, maxaa kaa galay? Are you giving me some money? Are you giving me some support? You are not giving me anything. So I have no like inaan adiga wax ku weydiiyo ama ku weydiisto action migulid. waxaa wax igula am action igula nafsadeyda in aan la wadaago wax waliba aan qof bini aadana banaanka jooga aan la wadaagin. marka asxaabay barnaamijkan intan ku xig yahay, haddii in yar wax yar uu kaa taabtay arrintan aan soo dhigay
waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe noo soo saartid sa familka quruxda badan aa uga soo qayb qaadastid aan zaaid u jeclahay familkayga familka aan isku baranay hawada familka aan isku baranay youtube-ka familka aan isku baranay ahaan meel ku noqonay oo aan zaaid ugu jeclahay haddaad kasoo qayb geli kartid waa well and good haddii aad mar hore nala joogtayna waa jeclahay nala joogaaga waan ku mahadsantahay wada joogeena waxaan kaa codsanayaa inta maqan inaad gaarsiin doontid adigoo mahadsan sidaa iyo nabadgelyo thank you very much wah